si aynu dadka u update garayno ama fikradihii xasan ee shalay aan u xusuusino waxa weeye odagan horta waxaan oran karaa waa qof ilaahay duleeyey waman yuhinillahu famaa lahu min mukram qof ilaahay duleeyey ma jirto cid karaamayn karta xujo waxaa looga dhigay in maanta la heli karo wax allaala iyo waxa uu maanta ka shaqaynayo shalay fikradii uu ka qabay marka yacni barasho dadka uga babaahan isaga intaasaan uga gudbayaa allah soo hanuuniyada waan leeyahay waayahay nimankii madasha samata bixinta soomaaliya shalay waxay iska daba noqdaan oo iska daba wareegaan oy mililigeeyaanba war bay soo saareen warkaas sida uu u yaalo iyo sida loo kala geday shakhsi ayaynu u dul istaagi doonaa laakiin marka hore war murtiyeedka oo uu akhriyey wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad aynu dhegaysano markaas kadib ayaynu faalla ka bixi doonaa insha allah madasha samata bixinta soomaaliyeed oo ka duulaysa kow adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay beddelkii dastuurka labo in meel looga soo wada jeesto dagaalka kooxaha argagixisada ah al-shabaab iyo daacish si loo badbaadiyo jiritaanka qarannimo iyo dawladnimo ee dalkeenna saddex in dawlad goboleedyada maqan ee puntland iyo jubbaland lagu qanciyo inay qayb ka noqdaan wadahadalka qaran afar in heshiis buuxa laga gaaro doorasho toos ah oo daah furan heshiis lagu yahay looguna gogol xaarayo qof iyo cod kuna salaysan dastuurkii dadka soomaaliyeed ku heshiiyeen 2012 madashu oo ka barigantaalaysa qodobada kor ku xusan ayaa wadahadal la furtay madaxweyne xasan sheikh 5 kulan wada xaajood oo socday muddo bil iyo bar ah oo labada dhinac dhex maray ayay madashu dalbatay in madaxweynuhu uu ka laabto cutubka afraad ee dastuurka iyo shuruucdii doorasho oo ka ratimatay kaasoo dhaawacaya heshiiskii siyaasadeed ee saldhigga u ahaa jamhuuriyaddii saddexaad ee dalka sida nidaamka baarlamaaniga ah hannaanka xukun ee federaaliga ah awood qaybsiga siyaasadeed doorasho 4 sannadla ah talada geedi socodka dawlad dhiska dalka oo wadar ogol lagu gooyo madashu waxay u dhabar adeegtay in wadahadallada laga midho dhaliyo si dalka looga samata bixiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan dhaawac ku ah wadajirka iyo midnimada niyad jabkana ku riday shacabka iyo beesha caalamka taasoo u adeegaysa cadowga soomaaliyeed ee argixisadu ugu horrayso lama gaarin heshiiskii ay shacabka soomaaliyeed rajada gelin lahaa loogana badbaadi lahaa khilaafka loogana mashquuli lahayn dadaalka looga soo horjeedo argixisada madasha waxaa u aragtaa inuu dalku marayo kala bayr halis ku ah jiritaanka dawladnimada iyo midnimada dalka haddaba madashu waxay ku baaqaysaa in dib loogu laabto dastuurkii 2012 ee ay bulshada soomaaliyeed heshiiska ku ahayd ee ku salaysnaa nidaamka baarlamaaniga ah ee ku dhisnaa heshiiskii carta in 9 bil ee ka harsan muddaxileedka madaxweynaha xal laga gaaro doorasho toos ah oo loo dhan yahay heshiisna lagu yahay dalkana u hoggaamisa qof iyo cod in degdeg loo joojiyo colaadda ay dawladdu dalka ka howrinayso gaar ahaan gobolka gedo in uu madaxweynuhu hakiyo arrimaha dhulka danta guud ee dhalisay xasilooni darrida ugu dambayn
madashu waxay caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadaxaajood dalka lagu samata bixinayo iyadoo mudnaan la siinayo danta guud midnimada dadka iyo wadajirka ummadda si taas loo midho dhaliyo madashu waxay go'aamisay in guddigii wadaxaajoodka uu sii wado hawshiisii dhammaad waa mahadsantihiin waayahay dabcan waxay ila tahay inaad daawateen hadduu idinku dheeraaday muuqaalku ka raalli ahaada sababta aan idinkugu sii wada daayana waa in aad fahamtaan wixii nimanku ay soo saareen iyagoo dhammaystiran waayahay aynu isdul taagna marka horta meeshaan warka la akhriyey waxaa ka muuqata run ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayi alaab isku dhex karaysa oo looga dhuumanayo in nimanku burbureen ayuu warkaani ahaa waxaa la yidhahdaa face safing wejiga oo la ilaashado waxaa weeye madashii xasanaa burburiyey iyagoo ka cararaya ayay horta intaan nimankii soo saareen laakiin maxaa marka arrinkan ka dambeeya sidee nimankan u kala jabeen maxaa dhibaataa hor dhacay horta nimankan waa niman kuleelku isu keenay marka hore xasan daahir aweysa hadda kahor iyadoo beesha mudullood ay shirayso xilligii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa layidhi shirka mudullood ee ka socda muqdisho ka war markaasuu yidhi dabcan jacayl isuma keenin wuxuu ku mahmaahay bunka wuxuu yidhi saliidda marka lagu rido marka hore wuu kala firdhadaa laakiin wuxuu yidhi markuu bislaado waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah inuu soo uruuro murxuhu ma shireenaa layidhaah markuu isu yimaado ayaa la ogaadaa inuu bislaaday wuxuu yidhi marka isjacayl murxaha isuma keenine kuleelkaa isu keenay reerkana wuxuu yidhi hadda kuleelkaa wada gaaray nimankan marka madasha samata bixinta soomaaliya la baxa MSS horta marka hore isjacayl isuma keenin iskula dan maaha laakiin maadaama nin walba qorraxda taagnaa ayaa la yidhi sideen isu kaashana maadaama marka la kala dan ahaa odayga xasan maxamuud ahaa nimankan wuu dhex galay nimankan waxaa ku dhex jira nin shaatara kambiista ah weyn oo aad wada garanaysa oo dullaal ah dantiisana aan ka habaabin oo la yidhaahdo shariif xasan sheekh aadan shariif xasan sheekh aadan waxaa weeye madaxweynaha soomaaliya uma sacyinayo oo muxuu ahaytay way ku adag tahay markaan leeyahay dulmiga dalka ka jiray ka mid tahay dabcan oo in fursad la siiyo raxaweynta ama digli marflaha dadka qaban ka mid ah waxayse sameeyeen wiil daaroodku intaan bal la gaarin kursigii madaxweynaha ay gudoomiyaha baarlamaanka qof waxay saaran raxaweyne halkaasaa marka digli marflaha looga xiray albaabka isagu marka dhowr goor ayuu taraygaray inuu madaxweynaha soomaaliya sharaxo uu suurtageli weyse wixii ka hooseeyo marka rabaa xasan maxamuud u tagay wuxuuna ku yiri warbaahishan muxuu ahaytay inaan kaa kala hadayaha dad rabtid aniga horta madaxweynaha koonfur galbeed waa inaad isiisaa sababtoo meesha waxaa jooga lafta gareen oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo meesha dhigtay adigana waxba kuuma taray xasan arrinkaas waa ka gadmay baan maqlay laakiin wuxuu yidhi taadii waan aqbalay taydiina ay dhex raaci oo nimanka aad la joogto waxaa weeye iisoo kala gad cumar cabdirashiid oo kale waxaa laga dhaadhiciyey waxaan kugu bedelayaa xamse ra-iisul wasaare rabaa waayahay mid kale waxaa la ii sheegay safiir in loo sheegay waxaan kala garan la ah inuu yahay axmed ciise cawadka hadda hadlaya iyo daahir maxamuud geeli daahir waxaan is leeyahay hadduuba safiir ka soo tegey wararka qaarna waxay sheegayaan xasanaaba meesha kusoo dhex tuurtay oo yidhi safiirka iska casil waxaad ka heli jirtay wax ka badan baan ku siinayaa nimankaas ii dhex fadhiiso ee xanta ii keen dhagax xasan meesha soo dhex dhigay inuu yahay baa la sheegaya sidoo kale waxaa isla dhagaxaas loo arkaa rooble inkastoo hadda daraad markii laysqabtay oo la yidhi maxaynu sheegnaa rooble oo ka mid aha dadka u sacyinayay in dadka runta loo sheego oo la yidhaahdo madaxweynahanu nabadna ma rabo wax maaragtay ka daacadana ma jiraan oo si toos ummadda loogu sheego in xasan meesha uu rabo inuu xoog ku jiro marka ma been baa laga sheegayaa oo ragga xasan meesha kusoo dhex tuurtay kuma jiro mase ballanqaadkii ayaa lagala daahay oo fooshaa ku fogaatay iyadana ma ogi intaasaan uga haraynaa nin weyn oo dadku ku tashanayay oo lalahaa waa ninka muxuu ahaytay ugu muhiimsan mucaaradka
ayaa isagana farta lagu guday ninkaas waxa weeye madaxweyne shariif sheekh axmed oo ah gudoomiyaha MSS shariifka dalaalkii uu soo diray xasan maxamuud shariif xasan sheekh aadan wuxuu ku yiri nin wadu waxaad qaadan karto kale laguma ogi ra'iisul wasaarena ma qaadan kartid oo ninka isku beelbaati kursiga madaxweynaha isaga ku fadhiya wixii ka hooseeya sheego odagu wuxuu yiri yaa lii dhowr milyan haysiyo waa xogta isla iyaga dhexdooda ka imaanaysa warka u fiirsan odaga shariifa waxay dhahan jaabka maran oo wuxuu yiri kaba soo qaadi kartid aniga ogi dhowr milyan haduu isii anigu waan iska tagaya sababtoo xasan run kuma oga oo inuu beenlow yahay uu og yahay waxna wuu rabaa okay afartaas nin oo mid magaciisu yani weli qarsoon yahay waa kan safiirka raba ayaa horta meesha ku jirto dalay yaa soo haray inta kale soo hartay waa lax dab taagan waxba ma aragto meel ay u dhaqaaqaan ma garanayaan iyagii waxaa daacad ka ah in ninkaanu doorashada dhexda keeno oo ay calafkooda raadsadaan tartamaan xilal uma saciinayaan dowladdan dhamaadka waxba kama rabaan laakiin waxaa caqabad ku noqda ragga tiimka ahaa ee safka kula jiray in la kala gaday adigu ra'iisul wasaare qaado safiir qaado kaash qaado madaxweynaha koonfur galbeed qaado afartaas nin marka waxa weeye waa nimanka diiday in si toos ah shariifku uu aamusay sababtoo isugu gudoomiyuhu wuxuu fursad u